صلى الله عليه وسلم ساعد قيامها مدعي دونتو جير اي بطان دلالك ما لا يعني مويسن هدب حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم ساعد قيامها مدعي دونتو جير آد أركتان إن أي سيبتا مصيبوين ككدش دبيلها إيو دوفانا سيدا درن وحو هلاغا مويسن هدب حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم مدعي دونتو ساعد قيامها إلا أد أركتان ومديد أو سلعنا دي سدحدودا مويسن هدب حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم مدعي ساعد قيامها إلا أد كأركتان دادك أو كتر تمي إسيد دارها وبودا دير دونيدا هدب مويسن حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم مدعي دونتو ساعد قيامها إلا أد كأركتان دومركي أو مدحيدو دكاليغا يسيد كرسيدا جيلا هدب مويسن حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم ساعد قيامها مدعي دونتو إلا أد كأركتان مالمها أو كوغودا فالصدق سيئة هدب مويسن حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم ساعد قيامها مدعي دونتو إلا أد كأركتان اسبوعيدا أو كوغودا فالصدق سيئة هدب مويسن حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم ساعد قيامها مدعي دونتو إلا أد كأركتان سندك أو كوغودا فالصدق دقا هدب مويسن حالة سيمانتا كسغنين وحو يري صلى الله عليه وسلم ساعد قيامها مدعي دونتو جير اي ديريران لبا كوخود واوين waxaana halkaas ahaan doonta dhimasho badan oo labadaasi kooxood ay aaminsan yihiin hal diin ma waysan xaaladaasi maanta in haysan dhamaanteen wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay soo baxaan 30 dijaal oo beenaalayaal ah oo mid waliba uu sheeganayo inuu yahay rasuulkii alle wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer la qaado cilmigii yaani ay dhamaadaan culimadii cilmigii taqiinay oo dhan oo isku soo haraan jaahiliintii wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay bataan dhul gariirada wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay bataan maal qabeenada oo isla markaana ay waayaan waxay maalkooda ku sadaqaystaan wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ما دعي دونتو wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer uu nin soo agmaro qabri qof kale uu ku jiro oo ku yiraahdo fiicnaan laheeda inaan booskaagi ariga ku jiro wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay qoraxda ka soo baxdo galbeedka oo ay dadka rumeeyaan oo markaas maxay u tari doontaa rumeyntoodii wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha waxay dhici doontaa iyadoo laba nin ay hortooda fidsadeen maro ay wax ku iibinayaan laakiin aysan awoodin inay maradaasi soo dubdubtaan saacada qiyaamaha waxay dhici doontaa isaga oo nin uu soo listay hashiisii ma se awoodi doono inuu cabo caanihi saacada qiyaamaha waxay dhici doontaa isaga oo nin hagaagsanayo baraag uu ka waraabiyo xoolihiisii laakiin sama awoodo in uu ka waraabiyo wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha waxay dhici doontaa isagoo qof waslad hilib ah uu kar u soo qaaday afkiisa inuu geliyo oo doonayo laakiin uusan awoodin inuu afkiisa geliyo wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer uu ka soo baxo dab arlada xijaas wuxuuna iftiimin doonaa luqumaha geela busra waa meel ku taala shaam waa ayna dhacday arintaasi oo waxay soo baxday oo la arkay maalintii saddexaad ee bishii lixaad sanadkii 654 hijrada madiina agteeda ayuuna ka dhacay dabkaasi dhimashadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kadib saacada qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay soo baxdo fidnada masiixu dijaal waxayna noqon doontaa guushii ugu weynay uu gaaro nabi ciise calayhi salaatu wasalaam uu ka adkaan doono masiixu dijaal iyo juuj wamaajuuj ee haddaba dadow ogaada saacadda qiyaamaha waxay ku dul dhici doontaa kuwa ugu sharta badan qalqiga uu alle abuuray oo dhan ee allow ha inagu darin kuwaasi yaa raxmaan allow kuwaasi ha nagu darin ee ugu qeyrka daran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh